kulanti waxana wanaagsan daawadayaal halkaani waa NTN TV kusoo dhawaada wararkeena duhurnimo qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya qaraxa ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay khilaafka u dhaxeeya Dani iyo Karaash laamaha amniga gobolka Bari oo gacanta ku dhigay shabakado ka tirsan Al-Shabaab مسؤول حالي lagu dilay duleedka magaalada Laascaanood wararkeena dibadana waxa ugu muhiimsan boqolaal qof oo lagu dilay gobolka deegaanka Oromiya ee dalka Itoobiya dowladda Afghanistan oo xabsiga ka sii deysay muwaadiniin u dhashay UK واللباتنية bisha lixaad sanadka 2022 daawadayaal haddana u diyaar garooba warkeeni oo fidsan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo xalay ka dhacay duleedka Muqdisho gaar ahaan tabeelaha Sheekh Ibraahim qaraxa oo joogtiisa inta badan laga maqlay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa sida la sheegay ka dhex dhacay farmashiye ku yaala tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid nooca dhulka lagu aaso lagu dhex qariyay farmashiga taa oo keentay in uu qaybo kamid ah farmashiga uu burburo sidoo kalena uu dhaawac soo gaaro shaqaalihii ka shaqeynayay qaarkood warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegay in maamulka iskale farmashigan la qarxiyay ay diideen amar ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab kaas oo ay ku doonayeen in ay bixiyaan lacagaha lagu sheego sakawaad markii uu qaruxu dhacay waxa goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya iyagoo sameeyay baaritaano kala duwan inkastoo aysan howlgalka ay sameeyeen aysan ciidana ku soo qaban madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Karaash ayaa kulan albaabadu u xiran yihiin ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Garowe iyagoo ka wada hadlay xal u helida khilaafkooda sida wararku sheegayaan kulankan oo ahaa mid qabsoomidiisa muddo laga shaqeynayay ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray sida laga yeelayo saddexdii wasiir ee xilka uu ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka sida wararku sheegayaan kulankan oo ahaa mid qabsoomidiisa muddo laga shaqeynayay ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray sida laga yeelayo saddexdii wasiir ee xilka qaadista uu ku sameeyay Axmed Karaash kuwaas oo kala ahaa wasiirka arrimaha gudaha amniga iyo maaliyadda waana saaxiibada ugu dhow Dani warar laga soo xigtay ilo labada dhinac ayaa shaacinaya in laga heshiiyay in xilka qaadistii saddexda wasiir uu ka noqdo madaxweyne ku-xigeenka loona daayo xilalkooda qodobkan ayaa ahaa midka ugu adag ee maalmahan dhinacyada isku keenidooda ka shaqeynayay ay ka talaabi waayeen xogaha ayaa intaas ku sii daraya in loo ballamay kulamo kale oo ku saabsan arrinta agaasimayaashii uu xilka qaadista ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka waxaa jira ballanqaadyo maaliyadeed iyo mid xilal oo Karaash looga shariftay inuu wax ka bedel ku sameeyo go'aano uu horey u qaatay waxaa socda qabanqaabada kulan kale oo midkan ka ballaaran kaas oo goobjoog ka ahaan doono gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ujeedka kulankaas ayaa ah sidii qalinka loogu duugi lahaa heshiiska dhinacyada lagu casumay ay korjoogto uga ahaan lahaayeen dhaqangelinta qodobada lagu heshiiyay daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa NTN TV laamaha amniga ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay 3 shabakadood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku jirto shabakadii sakawaadka ee kooxda Al-Shabaab dhammaan shabakadahan ayaa dhawaan ka soo muuqan doona maxkamadda sida ay sheegeen laamaha amniga ee gobolka Bari laamaha amniga ayaa sidoo kale maxkamadda ciidamada horgeeyay shabakad ku eedeysan Al-Shabaabnimo kuwaas oo lagu wado in maanta ay maxkamaddu bilowdo dhageysiga dacwadda lagu soo eedeeyay maamulka Puntland ayaa kamid ah maamulada sida adag uga hortaga dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab iyagoo marar badan soo bandhiga rag ay ku eedeeyeen inay ka tirsan yihiin Daesh iyo kooxda Al-Shabaab kooxo hubeysan ayaa xalay magaalada Laascaanood ku dishay Maxamed Axmed Aflahaar oo ahaa gudoomiyihii xisbiga UCID ee gobolka Sool goobjoogayaal ayaa sheegay in dhalinyaro ku hubeysan bastoolado ay rasaas ku fureen marxuumka xilli uu ku sugnaa iridda gurigiisa kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsaday waxaana halkaasi soo gaaray ciidamada ammaanka oo wada baaritaano ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda dilka gudoomiyihii xisbiga UCID ee gobolka Sool Maxamed Axmed daawadayaal haddana ku soo dhawaada wararkeena dibadda sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah ku dhawaad 300 oo qof oo maxaarow badan ayaa lagu dilay dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Oromiya
goobta lagu magacaabo Gimbi oo ay degaan qowmiyadda Amxaaradu waxaana lagu eedeeyay jabhadda Oromeya ee OLA. dilkan oo dhacay Sabtidii aynu soo dhaafnay ay dawladdu ku eedeysay jabhadda xoreynta Oromeya ee OLA, inkastoo afayeen u hadlay jabhaddaasi uu beeniyay in jabhaddu ay ka dambeysay dilka dadkaasi tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 300 qof. toddobaadkii hore dhexdiisa ayaa baraha bulshada muuqaale la soo geliyay waxa ay muujinayeen dad saarnaa gaari xamuul ah oo dhex socday deegaanka Amxaarada goob lagu magacaabo Dhawagafe oo ay degaan dadka Oromada ah inta gaarigii laga dajiyay si arxan darro ah loo leynayo. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hadlay xasuuqyada ku soo badanaya Itoobiya gaar ahaan kan ugu dambeeyay ayaa sheegay in dilalka iyo xasuuqyada loo geysanayo dadka aan waxba galabsan aan haba yaraatee loo dul qaadan doonin, isagoo xusay in mar walba ay mudnaanta siinayso dawladdiisu sidii loo sugi lahaa amniga shacabka iyo xasiloonida dalka. dhowr gobol oo ka mid ah Itoobiya ayaa waxaa ka jira isku dhacyo qowmiyadeed oo soo laalaabtay inta badan, taasoo sababteeda aan weli la ogaan, iyadoo isku dhacyadaasina ay yimaadeen intii uu hoggaanka Itoobiya qabtay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. isku dhacyadan qowmiyadeed ayaa inta badan sababa xasuuqyo loo geysanayo dad aan waxba galabsan oo shacab u badan, taasoo ay u dambeysay xasuuqii maalin ay ka soo wareegtay ee loo geysay dadka u badan qowmiyadda Amxaarada ee deegaanka Oromeya. lama saadaalin karo waxa ay ku dambeynayso xaaladaha ka soo cusboonaanaya qaybo ka mid ah dalka Itoobiya, iyadoo dawladduna ay mar walba sheegayso inay wax ka qabanayso isku dhacyadan, halka wali ay sii soconayso isku dhacyada u dhaxeeya qaar ka mid ah qowmiyadaha wadadaga dalka Itoobiya. Afghanistan ayaa xabsiga ka sii deysay 5 muwaadin oo UK u dhashay, sidaas waxaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska, iyadoo raaligelin siisay maamulka Kabul. saaxiibada iyo qoyska Peter Jovinal oo ah wariye iyo ganacsade xilli dheer lagu la'aa Afghanistan ayaa sheegay inuu ka mid ahaa dadka la sii dawladda UK wax tafaasiil ah kama bixin dadka Britishka ah ee la sii daayay iyo goorta la qabtay iyo waxa sababay xarigooda toona. waxaan ku faraxsanahay in UK ay xaqiijisay sii deynta 5 muwaadiniin ee Britishka ah oo ku xirnaa Afghanistan. xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka. daawadayaal intaas waxaan ugu dhan warkeenii duhurnimo, intaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.